حزب هدي لما غلا سيدي سبب ومؤسسات كدولة كمدة institution دولة معنا دولة لماذا institution إسكي بيت كمدة ودحيا شعبك هي دولته وموضوع اسكو حرتا شعبك هي دولته من مركا قار كوبنا isaga dawladii noqonaya markuu dawladnimada ka yimaadana meeshiisii dhaxu imaanaya wareegaasaa ugu jiraan shacabkana dee waa laga tirsan yaho kulligeed xubno shacabka ka midaan markaa ka midna marka xisbigan axsaabta saddex qaybood baa loo qaybiyaa inta badan adduunka jirta kulligii wax waad akhriseen ama kulliyadaha culumta siyaasadda waad barateen ama waa barataan ama waa akhrisaan mid waxaa la yidhaahdaa axsaabta ideology-ga ku salaysan oo inta badan xubnaha xisbiyadaas ku biiraya xisbigaas ku biiraya ideology mucayana oo gaara ha ahaato mid diineed ha ahaato midii shuuciyada oo ishtiraakiyada mabda'i hanti wadaagga la dhihi jiray iyo mabaadi' kale oo adduunka ka jirtaba mabaadi'daasa inta meel la dhigtaa la yidhahdaa qofka marka hore akhri halkaasna ku soo biir compromise lagama galo marka mabaadi'daas axsaab kale oo waxaa soo baxday axsaabtoo dhan badankeedii lixdamaadkii wixii ka dambeeyey axsaabtu way soo mar walbaba way soo horumaraysaa ideology-ga kuwaas ku salaysan xitaa si yaroo pragmatic oo nolosha dadka la xiriirtay haddana usoo tadawureen laakiin nooca xiga waxaa weeye nooca pragmatica la yidhahdo mabaadi' iyo ahdaaf waa leeyahay iyo ujeedooyin laakiin mar walbaba duruufta dalkaadu uu ku sugan yahay ee markaas lagu jiro ayay isla babedeshaa hawlihiisa iyo barnaamijyadiisu duruuftaas isla babeddelaan oo meel maahan hanti wadaag waxay isla beddelayaan ahdaaftiisu hadda duruufta iyo waktiga la joogo ayay la jaan qaadayaan waa pragmatic xisbiyada nooca kale oo saddexaad waa nooca xisbiyada ashqaasta la yidhaahdo dadka magaca leh oo hoggaamiyahooda ku xihan hoggaamiyaha Erdogan xisbiga kale oo maaragtay xisbiyadan dee Afrika ka jira badankoodu Nelson Mandela xisbiga qof hoggaamiyaha oo caana ku xiran oo qofkaas dadku si ruuxi ay ugu xiran yihiin marka guud ahaan saddexdaas tasniif laakiin xisbigeennu hoggaamiye caanana waa leeyahay ideology-na waa leeyahay pragmatic-na waa yahay kulli waa soo galay axsaabtu marka shaqooyin dhowr ah ayay qabataa xisbi muxuu yahay waa waxaan galayno oo maaragtay maanta u fadhino xoogaa in laga fahmo waayo shaqooyinkooda waxaa ka mid ah arrimaha siyaasadda ayay inta badan shaqada ugu weyn ay qabtaan waxaa weeye inay saameeyaan si siyaasiya u saameeyaan dadka jamaahiirta shacabka dowladdaas dadka Soomaaliyeed in la saameeyo oo laga gado xisbigu wuxuu aaminsan yahay si codka ugu badan loo helo si loo xaqiijiyo barnaamijyada xisbigu uu u taagnaa marka madaxtooyada ama maaragtay xukunka la tago wuxuu inta badan ka shaqeeyaa inuu mideeyo dadka codbixiyaasha iyo xisbiga uu dhaxeeyo oo codbixiyaha maalinka codka uu bixiyo maaha in la yidhahdo khalaas waa laga danaystay codkii laga rabay waa laga qaatay albaabada la soo xirta kadib laakiin wuxuu u dhaxaynayaa mar walbaba shaqada xisbigu waxay tahay inuu dadkii ka tirsanaa iyo kuwaan ka tirsanayn ee aaminay ee codka ku aaminay inuu mar walbaba ka warqabo oo u dhaxeeyo wuxuu si kor joogteeyaa howlaha xukuumadda xisbigu wuxuu u taagan yahay si xukuumadda loogala xisaabtamo amaama shacabka hortiisa si loola xisaabtamo xisbiyadu waxay inta badan yacni kor joogteeyaan howlaha ay wada fiiriyaan saxaan soo bandhigaan khaladaadkooda
xukuumadda markaas dalka haysata hadday wax ku saxsantaana waa la sheegaa laakiin dadkeenna waxaa moodaa in badan oo ka mida oo mislayn ee la yaameeyey marka la yidhaahdo xukuumaddu waxaasu qaladkaasi gashay mucaarad waxaas waa mucaarad waxaasi ma fiicna in la mucaarada ma roona waxaas ma roona ma ogaba danahooda bay laga shaqaynayo marka xisbiyada shaqadooday ka mid tahay maahan wax aniga hadda aan sheegaye waa referenceska iyo buwaagta markaad fiirisid bay saas ugu barantaa inay kor joogteeyaan la socdaan meesha ay maaragtay galaanba in lala galo si hantida ummadda iyo mas-uuliyaddii ummadda ee lagu aaminay inay sidii saxdaa u badanay si loo ogaado shaqadu way badan tahay waxay kulmiyaan baahiyada bulshadu ay qabto ayay soo aruuriyaan xisbiyadu waayo ilaa tuulo ilaa qof ilaa guri ayay dhex joogaan baahiyadaas bay waxay u kala sameeyaan mudnaan kuwooda ugu waaweyn waxaa la rabaa dalka cirifka cirif qolo walbaaba waxyaalaha ay mudnaanta siinayso inta la soo aruursho in xisbigu howlihiisa ugu weyn ee markuu xukunka tago ugu guulaysanayo inuu ka dhigo oo yaqaano degmada la yidhaahdo riyooday la yidhaahdo ama cadaado la yidhaahdo ama degmo kastoo dalka ka mid a baahiyadeeda gaarkaa ay qabto xisbigu inuu dadnihiisa meeshaas u jooga intay soo aruuriyaan inay keenaan oo xisbiga rikoorkiisa uu ku jiro oo dowladda marka la tagana qorshayaasheeda koowaad ay ku darsato intuusan dowladda ahaynna advocacy inuu u sameeyo oo la yidhaahdo meeshaasi waxaasi ceelal biyahay u baahan tahay waa in loo gurmadaa hay-ado ku xihan xisbiga ama dadu influence ku leeyahay waa inuu kala dardaarma shaqada ku xigta waxay tahay xisbigu activities bulsheed iyo inuu dadka waxbaro dadka codbixiyaasha inuu waxbaro siday codka u bixin lahaayeen faa'iidaday ka helayaan waxaasoo dhan buu u taagan yahay xisbigu wuxuu u taagan yahay dadku ambitionkooda iyo shaqada iyo duruufta markaas dowladda haysata inuu isku miisaamo oo miisaan fiican inta saaro uu ka soo saaro wax la qaban karo inuu ka soo saaro dadka soomaaliyeed hadda wax kastay u baahan yihiin dowlad meeshaas tagtana ma qaban karto laakiin waxyaalaha ugu mudnaanta badan inuu inta kala soo baxo baahiyada jira iyo ambitionka dadku ay qabaan waxay rajaynayaan in dowladdu qabato in inta la keeno markaas kadib la yidhaahdo 1 iyo 2 iyo 3 baa sanadkan iyo 5taas qodob baa la qabanayaa kadibna saasay isugu taxan yihiin ilaa meesha u dambaysa waxaad nidaaminaya waa xisbi haddaan sidaas loo nidaamin bal xalay wuxuu ku hadlay ninka odaga waa dhegeysanaysa يعني ما له واحد كان ما جرتو عيد كدم بيسا ما جرتو عيد لا تلسا ما جرتو واسكا هالقف أما لما قفوا وكلا لجوكته يعني سيدا ومركا إلا نقط إلا برنامج إيش اللي قومي مانه سيدا إلا نقط مركا أيو تصرفها يا صوماليا وحيالها هي اللي حالة إلا جه الله يهي رحوينها هي كهلا شال الشرع يا لباسيي برلمان كقصب لوجي جوب لو مرسيي waxay ahayd ummadda Soomaaliyeed inuu sharxo sababta looga maarmay qof aqoon-yahan oo dhaqaalaha soo bartay oo bangiyada soo bartay oo Soomaaliya oo sharcigu xaq u siinayo waa xuquuq sharcigu waa xuquuq qofka Soomaaliyeed uu leeyahay iyo jiilasha soo socda sababta loo niyad jabinayo ee looga maarmay kuwa joogay hadda u qalma inuu noo sharxeeyo ninka odaga ma ahayn dawladda hore iyo gudoomiyaha soo wacay mooshinka marka laga keenay markaas wuxuu yiri mana dhiinba gudoomiyaha soo kii biyaha iyo laga goostay baa korontada asaga telefoon buu soo dhacay marka xisbiga waxaan ka wadaa halkaas inaan ku talaxtay ma rabin xisbigu wuxuu la tagayaa isagoo barnaamijkiisii wata ayuu madaxtooyada tagayaa oo dhaqaalaha wuxuu ka qaban lahaa arrimaha bulshada iyo dib u heshiisiinta wuxuu ka qaban lahaa waxbarashada wuxuu ka qaban lahaa caafimaadka wuxuu ka qaban lahaa meeshaana lagu soo aruurinayaa yaa aruurinaya ma waxay cirkaaba ka soo degaya maya maskaxda aqoon-yahanka xisbiga ku jira iyo dadka way aragga ayaa la soo aruurinayaa ayagaa aruurinaya soo gudbinaya markaasaa bugaag laga dhigaya halkaasaa lagu tegaya maxaa imaanaya markaas in qof maskaxdiisu buuxo xisbi mas-uuliyadda ummadda lagu aamin karayna meeshaas tagaan guud ahaan shaqada looga baahan yahay xisbiyo waa badan yihiin
laakiin waxaa ka mid ah in dadka xukunka ee xildhibaanada noqonaya iyo kuwa kale ee madaxweyne u tartamaya ee xisbigu dirsanaya kuwa guddoomiyaasha madaxweynayaasha dowlad goboleedyada jago kastoo loo tartamayo in si dimuqraadi ah oo xisbiga gudihiisa in inta lagu doorto la kala sooco la kala shaandheeyo qofkan la yidhaahdo intaasuu leeyahay nama mateli karo halkaas markuu tago calooshu shaqaystuu noqonayaa xagga hadduu tago wuxuu noqonayaa waxaan maaragtay ummadda uu khiyaamayaa in xisbiga gudihiisa waxyaalaha shaqooyinku qabto in meel shaandho lagu kala shaandheeyo hoggaankana lagu tababaro dadka kuwa la dirsanayana inay noqdaan haddaan soo koobo marka xisbigan hadda la joogo taas axsaabtoo dhan baa laga rabaa shaqadaas xisbigan hadda aan joogno waxaa runtii ku midoobay xoogagii lookalka ahaa ee waddaniyiinta hadda ka hor baa la sheegay waxaa la yidhi ninkii iskuul ka soo shaqaynayay ilaa iyo burburkii dhacay oo intaasoo iskuul dhis oo intaasoo iskuul macallin ka soo noqon oo isbitaal dhis hadduu waddani noqon waayo nin diaspora oo 35 sano dalka ka maqnaa oo weligiisa ku soo laabo soo waddani ku noqon waa la isweydiiyey marka dadkii lookalka ahaa waddaniyiinta ayaa xisbigan ku midoobay oo khibradda dowladnimadana 10 sano u dambeysay dowladihii Soomaaliya ka jiray ka soo shaqaynayay